gabadh iyo nin isqaba oo runtii reer fiican oo wada nool ayaa gabadhiiba waxay tiri waxaan rabaa inaynu badda tagno oo aynu badda bal kusoo yaro dabaalano oo jawiga aynu bedelno. ninka waa ka aqbalay, baddii bay tageen. baddii markay tageenba waxay la kulmeen reer kale iyaguna badda runtii maxaa yimi oo iyaguna raba inay ku dabaashaan. labadii reer baa isbartay. reerkaa ay isbarteen inan baa la socda, inan dhalinyara. inankaan dhalinyartaah maaha nin runtii la mahadiyey akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa. markii la isbartay ayaa waxaa dhacay markii baddu ay dhammaatay inuu inankii yaraa ee reerka kale runtii la socday ee dhalinyarta ahaa inuu labadii qof isqabay isagu baabuurkiisa soo saaro, maadaama baabuur gaara uu lahaa isagu. gurigoodiibuu keenay. haddana waxay noqotay maalintii dambe badda imaadaan inuu haddana isagu uu qaado. aduu waxa isdhexgalay labadii reer, si gaara waxa isu sii dhexgalay ninkii dhalinyartahaa iyo ninka xaaskiisiba aad isu dhexgalay. bale waxay arrintaasi ay runtii keensatay inuu caashaq hoose oo ninkan runtii guriga le aanu ogeyn inuu dhex maro gabadhi uu qabay iyo inanka yaraaye badda ay isku barteen. arrintii way ballaaratay, caashiqu waa sii weynaaday. ninkuna wax waru hay haba yaraatee ma jiro. maalin maalimaha ka mid a ayaa ninkii dhalinyartaa gurigiibuu yimi, reerkii maxaa isqabay. ninkiibuu ku yidhi namari maanta badda inagu aynu tagne, aynu soo dabaalane. qalbigiisa wax kale ayaa waqtigaa ku jira. way israaceen, baddii bay tageen. baddii markay tageen 2 saaco ka bacdi ayuu ninkii dhalinyartaha soo noqday. gabadhiiba guriga ugu yimi, waxaana ku yidhi ninkaagii baddiiba ku dhintay. arrintaasi la yaab bay noqotay. laakiinse qaabkeeba u dhintaad filaysaa? wuxuu yarku sameeyey, ninka markuu badda soo geliyey, ninkan dabaasha aadu muu aqoonin. markaa badda markuu soo geliyey wuxuu geeyey meel fog buu geeyey oo mawjado waaweyn ay ka socdaan. ninkana dabaasha aadu muu aqoonin. mawjadaha markay ninkii qaateen ee uu runtii qayliyey, uu ku yidhi war iga soo gaadh, uu ka gaabsaday, uu u gooyey, uu u gambiyey suu meesha ku qarqoomo. halkiiba tiibaa maxay keensatay ninka odayga barta inuu ku qarqoomo oo ku dhinto. aduu ninkii dhalinyartaa markuu guriga kusoo noqdo gabadhii ku yidhi ninkii saasaa ku dhacday. gabadhu markeedu horeba dee ninka hoostay kala socoto iska jacayl waxbaa ka dhexeeye dee hoostay ka faraxday. halkiiba wuxuu ku yidhi gabadhan markaa waa gabadh agoona, reer ma haysato. ninkana wuxuu ku nooliyay guri u gaara oo reerkooda lama noola. halkiiba wuxuu ku yidhi waxba ha warwarin, gurigaygii baa ku geynayaa. adi inankaaga ina yarbay markaa ay haysataa, adi inankaaga yarba gurigaygii baan geenaya, halkaasaad ku noolanaysaan, waana ku guursanaya. balantaas uu qaaday. gabadhii meeshiiba ka baxday, gurigii ninkii bay degtay. ninkii subaxa markuu soo too subax ku tiradaa goormaynu isguursanaynaa, wadigii ballanta ii qaaday. aduu waxay socoto sheekaduba ninkii dhalinyartahaa wuxuu la soo baxay sidii akhlaaq dhaqankii hore uu gabadhan uu kula dhaqmi jiray mid ka duwan buu la soo baxay. markasta uu la meeraystaa. markay tiraado warde maxaa kugu dhacay soodigii sidaa ahaa sidaa igu wanaagsanaa maxaa iska kaa bedelay. aduu waxay noqotay muddo ka bacdi inuu maalintii dambe xaqiiqada u sheego, inuu ku yidhahdo nayaa dhegayso, anigu kuma rabo, gurigana waad ka guuraysaa. arrintaas waxay keentay gabadhii inay ooyin ay qabsato, iyadoo aada uga xun xaaladda ay ku jirto. dibna u xasuusinaysaa xiriirkooda siduu ahaa. guriga waxaa dhex fadhiyo bartan oo kala fadhiya kii yaraa ee gabadhaasi ay dhashay. ka yar muxuu gacanta ku haystaa baaskoolad ninkan dhalinyarta uu leeyahay ayuu gacanta ku haystaa. baaskooladani ninkan odayga ahi uu ka saaray xabadihii ku jiray xalatooluu ka saaray. marka wuxuu aaminsan yahay ninkan dhalinyartaa baaskooladan ka yar ku ciyaaraya wax ku jiraaba inaana jirin buu aaminsan yahay. laakiinse ilaahay wax kaluu ka wadaaya. kii yaraa baaskooladiibu saa u qaaday. ka yar waxa weyn waa 4 jir, aad buu yar yahay. kii yaraa baaskooladiibu sida u qaaday, dhinaca ninkan dhalinyartaaba u jeesatay, xabaduma ka soo booday. kii yaraabay ninkii dhalinyartahaa ayay wadnaha kaga dhacday, bartiiba dhulka ku dhacay. dhulka sidaa markuu ku dhacay ayaa la isku soo baxay. gabadhii soo baxday, jaarkii soo baxeen, ninkii baa la dulmi. ninkii oo naftu ay kasii baxaysaa ayaa waxaa ku dhawaaqay kelmado aadu la yaab badan. kelmadahaasi maxay ahaayeen? heblaayow, ninkaagii hebel ahaa anigaa dilayoo badda ku qarqiyey oo runtii muxuu ahaayey qarag kaga tegay. ee sidaasay hawshaasina ahayd. halkiibaa waxaa dhacday inay sheekadii bartii kusoo gunaananto. ninkii dhalinyartana halkaa uu ku tago, gabadhiina xaqiiqadeey ogaato.
ninka dhaliirta qalad buu sameeyey, gabadhuna qalad bay samaysay. daawada sheekadana waxay ku soo dhammaanaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaag buu inala raadinayaa. haddii laakiinse xumaan dadka aynu la raadino, waxaa laga yaabaa xumaanta abaalkeeda adduunka ma inaad ku hesho intaan aakhire la isla gaadhin. intaasaan kusoo koobaynaa. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.